runtii saaka airportka Muqdisho markaan ka soo dagay dhacda fool xun oo dhacdadii labaad ee aniga muddadii hadda shirkii ka horeeyay oo bishii 7aad lagu galay Belgium markii aan ka soo laabanay igu qabsatay airportka maantana igu qabsatay laakiin way kala duwanaayeen tan iyo tii hore airportka maanta markii aan ka soo dagay maalmahan waxa ay wacayoon iswacaynay xildhibaano fara badan siyaasiyiin fara badan dadka saaxiibada aan nahay oo daba joogay shir jaraa'id oo maal dhawta aan Istanbul ku qabtay waxaad ka hadashay waxyaabo fara badan oo khuseeya siyaasad oo khuseeya dhaqaalaha oo khuseeya bulshada baad ka hadashay meelaha inta wanaagsan Soomaalidu ma aado oo ma fiirso war madaxdeena aanu ducayno oo aynu ducada ku kaalmayno arrin fiican bay ahayd cid soo qaadin ma arkaysa waxaad ka hadashay ganacsatada canshuurta xamar laga qaado ee dawladda federaalka ay ka qaado maxaa wada oo loo sameeyaa maxaa amnigooda laga qabtaa checkpointyada ma laga qaadaa ganacsatada dhaqaalahooda kobac ma laga fiiriyaa iyo hoos u dhac baad ka hadashay maxaad uga hadashay waxaan rabaa inaan qodobka kaga jawaabo ganacsatada ana xukuma ganacsatada xamar dukaamada xamar ee canshuurta laga qaada ana xukuma xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed baan ahay ana shatida siiya ana xukuma waa inaan u hadlo markii ayaga dawladdu ay noo diriba waan oo la hadalaa canshuurta dawladda bixiyo ayaga markii ay cabanayaan dib ay ku jiraan waa inaan nidhaahno dawladda ay ka daaya ganacsadaha markii uu badeeco ka soo rarto dekada bakaara 24 saac ku gaaraya ee checkpointyada iyo loo geysanayo dhac iyo bob waa inaan ka hadalno waa inaan nidhaahno maxaa bedelo loo sameeynaya waxaad ka hadashay baa la yiri oo dawladdu ay ku haysataa maqaamka dadka reer Muqdisho 3 milyan ee Muqdisho degan maxaa ku galiyood ooga hadashay sax weeye arrin siyaasadeed weeye laakiin ka muwaadin ahaan aan ra'yigayga ka hadlay kaliya go'aan ma aha go'aan aan leeyahay ma aha go'aan aan gaari kara ma aha waxaan ka hadlay ra'yigayga inay ila quman tahay dadka reer Muqdisho inay maqaam ay si nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya maanta ay ku talaabsatay inay ay reer Muqdisho maqaamka wax ka helaan reer Muqdisho inuu dalku dagaan rabnaa dalkan waxa federaal loo yiri ee federaalnimada inuu ku dagay ahayd oo qolo walba ay qanacdo qolo walbana la yiraahdo dabadeedna marka dambe Soomaali ayadaaba dad yar ah Afrika ba isu gurguuraysa Soomaali ay hal meel isugu timaado fikirkaas haddadan baan qabaa waan ku qanacsanahay waxaan qabaa inay reer Muqdisho ay helaan matalaad siyaasadeed systemka dawliga ee Soomaaliya haddii la rabo caasimadda Soomaaliya inay degto qodobkaas saasan uga hadlay maalinkii hore waan ku qanacsanahay dawladda Soomaaliya dadka reer Muqdisho ee 3 milyan aragti ay qabaan baa jira guuxa dadweynaha anagu waan la soconaa carabtu waxay tiraahdaa al-akhbaaru inda al-kasiix dadka ganacsatada baa xog oo dhan haya annagu xogtaanayno reer Muqdisho waxay rabaan dad system siyaasadda sida maamul goboleedyada gobolka Banaadir matala maantaan qabaa baritaan qabaya waa fikir anigu aan qabi karo dawladdu way diidi kartaa reer Banaadir qaar fara badan oo kamid ah diidi kara qodobka kale waxa ay ku saabsaneed runtii oo aan ka hadlay arinta Jubbaland ee 2012 ilaa hadda soo noqonaysay iyo dawladda arrinna waa arrin siyaasadeed arrinna waa arrin bulsho iyo ganacsi aanu waxaan ka hadlay dalku si uu u xasilo oo xasiloon u helo Jubbaland ha laga daayo dawladdu abaabulka siyaasadeed ee ay ku wado reer Jubbaland waxaan qabaa waa dad isbitaal qof jirana oo isbitaal ku jiray oo barihi laga tuuray oo soco la yiri uu soconaya qayla waxba ma ka qaadayso buuq waxba kama qaadayo dhagax tuuriyeen waxba kama qaadayso state taagan weeye madaxweynaheeda sharci buu shalay ku yimid barina sharci buu ku tagayaa qodobka aan ka hadlay maalinka horena intaan buha waa in ra'yi ila quman
haddii ay tahay qofku ra'yigiisa male ولدنا أحرارا أنك أصلا ولدنا أحرارا أنك حرا على دلي ما هل كرتدا آمس واحد من سنة عروش كويسو أبيوجي ندلي ما بين نوشيجين نلقوم بربارين وين عن هذا الله أرهايجا عن قبنا عن كهذا الله أرنت الساك اللي وقف صدي نحر كذا نساسوا أرمها أنا كهذا الشيء arrimo ku yaala ma aha maxaad oga hadashay arrimahan aan ka hadlay ra'yigayga aan qabay buu ahaa maantana waan qabaa birina waan qabaa ama muqdisho airportkeeda biritana waan ka degi baridana waan ka degi dadka qaar fara badan oo ku qasaya shalay baasaboor baa lagu qabsaday dawladda ka horeysa baasaboorka bixinaysay dawladda ka horeysa kun jeer baan airport ka degay mayn igu qabsanaynin baasaboor la isku qabsanaya ma jirto baasaboorka aniga xogta aan hayo cid haysaa ma jirto shirarka caalamiga ee tagna caruurta la kaxaynaya gabdhiyo wiilal leh ee baasaboorka guudan haysta ma tahriib baa loo wadaa wax kale loo wadaa dawladda iyo baaristeeda og ilaahay baa garan aniga gudoomiyaha coffee wuxuu ii hayaa imuuna gudoonsiinin laakiin xaflad baan ku sameeynaya buu shahaada sharafeed maxaa yeelay ganacsadaha kaliya ee u dhisay guri immigrationku uu leeyahay oo aan shilina ka rabin ku shaqaystay yidhibaana markay labada ayaan la isku Soomaali fara badan baa isku qaldaysa arintuna taas ma ahayn arinta tan dambe weeye waxaan qabaa reer Jubbaland أنا هالكن أوجا مهال علنا يا وزير أمار أو رنتي مانتا مال ونندلشي قارن أين أرنتكوا في عناد بالصوت والصورة وحن ويلش قبطي أن كوا ذا هالليني كاميرا لقى داونا ولا قد جيساني وود جيستي سام في لي أسيان صوب بندق دونا ونا أوجي هاي مانتا وكو قناعسين يا وزيركوا جهدا كذا بيسا أد بودرين سين وحكلون ربعنا هالكن أوجا مهال عليو runtii dawladda Jubbaland xildhibaanadeedii halka joogay wasiirka ugu horeeyo Omar senator Fartaag senator Ahmed Xaashi walaalkay xidig senatorada kale iyo wasiirada kale senator Bulsho oo dhamaantood aan u kala hadhin arinta ayagana waan u mahadcelinayaa hal baan rabaa inaan ku gunaanado dalkan waa federaal iyo isdhaxmarin cid tiri ma jirto maamul goboleedyada fikirka aanu maalik horena waan ka hadlay dawladda si hoose wax wada dhaqda sida Soomaalinimadu ku fiicantahay wasa rug ganacsi Soomaaliyaana saasan qabnaa ama lisma dhaxmarayo hadee dawlad goboleedyaduna mayna sheegin dawladda federaalkiina yeelan jidaynin arinta in la yiraahdo lisma dhaxmarayo qolo walba airportka yar ay xukunto ilaa meelo yar baa ninba xukumaay lisma dhaxmarayo yaa la jidayn